بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. haddii aan la qadaro waxaan wadaagi doonaa ugaadha la yidhaahdo gumburiga. Gumburigu waa dabar-dambadeedka muuqaal ahaan wuxuu shabahaa ama u egyahay dameerka, hase ahaatee waa uu ka dheer yahay waanu ka awran yahay. Lugaha waxa uu ku leeyahay daliigo ama liidad madmadow, waxaanu ku dhaqan yahay kaymaha shareeran iyo meelaha caran-carka ah ama buuraha ay adag tahay in la koro. Waa fiig marka uu dad arko ka baxsada. Wuxuu leeyahay indho fiiqan oo hilaad fog buu wax ka arkaa. Kolalka qaarkood waxaa dhacda kolka ay halistu ku soo dhowdahay inuu isu taago, marka bahalku uu fara saaro inuu caga kaga baxsado. Gumburigu wuxuu leeyahay habdhaqan laboodkiisu aad u taban. Waxaa la yidhaahdaa laboodku waxa uu dilaa ilmaha caloosha ugu jira hadduu uu lab noqdo. Maadaama uu dhaqankaa leeyahay, tadhadigna way taqaanaa way ka firdhataa, wuxuun baanay soo celisaa kolka uu awood yeesho ee uu iska celin karo weerarka kaga iman kara gumburiga kale ee xoogga leh. Waxaa jirta gabay uu tiriye Allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray Xaaji Aadan Axmed Afqalooc oo la yidhaahdo waa ceeb axmaq u leeyahay. Gabaygaas wuxuu odhanayaa caadada gumburi leeyahay iyo curuf xumaantiisa, carruurtiisa kiisii labaa cadowgu laaya, cabsuu uga qabaa habarta maray cududu yeeshaane tadhadigna way camal taqaan caynka uu yahay sidkoodoo cishooyinu hadhay meelu carartaaye ilaa uu iska caabiyo uma tagto waa cilmi ilaahe oo uu leeyahay ilaa uu awood yeesho ma soo celiso. Aad baad u mahadsantihiin daawashadiina. Waxaan rajaynayaa inaad sii fidisaan, faafisaan oo dadka aad la wadaagtaan. Waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.